السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رالي إيقا نقضة لايف بان كوشري وحان كهذا يقان يعني سيدا لون نقضة happy mother مركا وحاد عاي تنفونكي باقا قاعي رالي نقضة مركا ولا عليان عشان كيو هرو يسكدو مي إن شاء الله qodobada waan ku soo celinayaan ka hadlayay waxaan ka hadlayay anigu wuxuu go'aano ka hadlayay qodobada yani sida loo noqdo hooyo faraxsan how can you be a happy mother waxaan isku dayaa Soomaaliland ku hadlo I wrote it down listiga in English marka maskaxdayda is conflicting marka aan la hadlayo Soomaali way wixii English bigu qoran yahay so it's kind of like going back and forth marka insha Allah soo noqda dhamaantii wada salaamaya Umar Cabdullaahi waxaan rabay maanta gabdhaha walaalada ee Soomaaliyeed hooyooyinka sharafta leh waxaan rabay inaan la wadaago dhowr gabdhood ay soo weydiiyay runtii yani how do you balance your life about how do you be happy saada qof sanad wararkiis marka waxa soo dhameysay weydiiyeen marka alxamdulillah haween social media waa wax la iskala faa'iideystaa waa in wax la kala faa'iidaa waqtigu waa muhiim ma sha Allah 20 minutes meesha ku jiro waa inaan waxaan kala faa'iideysan karnaa in kala faa'iideysana insha Allah maaragtay social media ma ahan maaragtay aytan iyo maaragtay opinion kaaga waxa sometimes marka wax qof ku dhaantid ama aad wax garanaysid oo wax ka soo akhriday meel ama maaragtay information metric ka shay aad u maleynaysid is useful for other people you have to share it alhamdulillah marka todobada qodob amaanta idin la wadaagayo waxa weeyaan the topic how to be a happy mother marka qodobka ugu horeeyay waan ka soo hadalay waxaan nidhi waa hooyo hadda tahay Soomaaliyeed oo aad abtid maaragtay inaad si kordhisid farxadaada ama noloshaada si wanaajisid alhamdulillah waa hawl badan hooyada ma sha Allah it's a lot of work it takes a lot of effort it takes a lot of time it's time consuming it's endless it's absolutely challenging laakiin hooyo markaad tahay Soomaaliyeed you have to isku daydaa marka horeysa number 1 naftaada inaad waqti siisaa waayo hadii aad ugu farxad if you have happiness in your heart if you really take care of yourself then you have something to lend to other people ilmahaaga odaygaaga gurigaaga familkaaga neighborkaaga hadii aad ugu faraxsan tahay iyagana waad farxad gelin kartaa laakiin runtii waxa weeyaan hadii aadan adigu farxad sanayn ama naftaada aad dareemaysid inaad waqti siinin ama aad naftaada dareemaysid runtii inaad hawl badan qabanaysid ama waxyaabahaas oo dhan then there's nothing to give to other people marka hadii aad adigu naftaada waqti siisid number 1 hooyo hadda tahay haysilaawin ama aroos aad ama coffee shaxna ka soo cab ama wax samee adag ku jirta number 1 a lot of studies iyo baaritaano badan lagu soo fiiriyo hooyo hadda tahay waa naftaada waqti siisaa haddaad naftaada ilowdid if your motherness comes before adiga naftaada then runtii taas waxay ku sheegaysaa inaadan haynin wax kale dad kale la siiyaba Soomaalida mahmaah baa jirtay walba ninkii walba waxa haystaa waxa laga qaataa hadii wixii adigu aadan haysanin wax qofna ma siin kartid so waa aad bay muhiim tahay hooyo Soomaaliyeed tahay inaad naftaada jeclaatid first inaad naftaada waqti siisid in aad garatid waxyaabaha ku farxad geliya si aad ugu faraxsanaatid reerkaaga ilmahaaga qodobka labaad wuxuu ahaa waa in aad you have to learn how to ask for help taa macnaheedu waxa weeyaan hawsha guriga hawsha ilmaha hawsha noloshaada haddii uu jiro qof odaygaaga matalan ama someone that you share your life with waa in aad qofkaas shaqada la wadaagtaa marar badan istaadiyo badan ama baaritaano badan oo dheer badan runtii marar badan waxa lagu fiiriyay what makes mothers unhappy generally what makes women unhappy because waxa la soo ogaaday dumarku marka ay guursadaan guri yeeshaan runtii their happiness goes down absolutely down and waa la soo weydiiyay waa la soo fiiriyay 10 sano ayaa baaritaan lagu fiiriyay la dhahay okay why what's the reason why because nimanka happiness kooda when they get married it seems to go up believe it or not marka baaritaanka waxa lagu soo ogaaday qodobada ugu badan ee dumarka farxadooda hoos u dhigta in ay yihiin marar badan dumarku inay ka hawl badan yihiin nimanka hawsha guriga hawsha ilmaha hawsha nolosha oo dhan in ay dareensan yihiin marar badan 80% 90
in iyagu qabanayaan dhabarka u fidinayaan taasina ay keento in ay hadhowto farxadooda hoos u dhigto waad ogtahay hooyo iyo aabbo isku shaqo maaha hooyadu mar walba iyadaa ka shaqo badan aabbaha ama ilmaha ha noqoto ama tarbiyadooda ha noqoto ama waxbarashadooda ha noqoto ama dhargelintooda ha noqoto ama kabaraayintooda whatever it is the fact is hooyadii aabbuhu isku shaqo maaha hooyada 3 jibbaar hawsha qabata so marka haddaad adigu hooyo tahay if you want to be happy you have to learn how to ask for help like مثلا for example if I use myself for example aniga hooyaan ahay so waxaa sameeyaa marka I share the house duty with my husband there's basically stuff that I don't do in my house unless it's emergency unless it's I'm not telling you what it is but this I don't want to do it because if I do it I'm just not going to be happy I will feel as though I'm doing everything okay and that's never good for anybody it's not good for my husband it's not good for my kids it's not good for me so marka shaqada waa inaad qofka la wadaagtaa runtii waxa weeyaan nimanka haddaadan weydiinin oodan dhihin waxaa qabo sidaas samee kaa samee nimanku generally way dhoohan yihiin dhoohnaanshahaasna ilaahay baa u siimeeyey it's some biological reasons I don't know what it is gabadh markay aragto hawl meel taalla ama wax aragto tendency-geeda waxa weeye inay waxaa qabato ama waxaa fiirfiiriso ama sii kala gasho nimanka tendency-gooda waxa weeyaan just to lay back waa ka dhoohan yihiin nolosha especially markay timaado guri shaqadiisa waxaa laga yaabaa ninkaaga haddaad maanta ilmaha uga tegtid walaa jikuusan keergaraynaynin iyo alaab meel taaluusan fiirinaynin walaa ilmuhu waxay xidhan yihiin baba laga yaabaa inuusan fiirinaynin walaa waxay cuneen hoos buusan usii fiirinaynin walaa waxaasoo dhan maba sii fiirin waa ka dhacsan yahayba all he cares is these kids are alive and way ordayaan and meeshay marmarayaan that's all he cares okay adigu hooyo markaa tahay what do you care everything ilmaha waxay xiran yihiin cuntada cuneen details waxay cuneen okay waxay daawanayaan programka TV-ga waxay daawanayaan siday u eegyihiin guriga environment-ga suu u eegyahay jikada guriga living room-ka the whole environment so adiga gabigaaga dhan dumarka waa computer okay you care about everything needs to be perfect okay nimanka no they don't care markaas taas waa wax ilaahay ku sameeyey waa some things in their head something in their brain oo ilaahay u sameeyey or maybe that's the reason ilaahay subxana wa tacaala allahu aclam maybe ilaahay reasonka but because imagine haddii ninku adigoo kale ahaan lahaa if he would care about everything all the details see waa iskaga hor imaan lahayd sama wax walba the way things it is isna kuu qabsan oo kadhina no it has to be this way no it has to be this way so ilaahay baa wax sameeyey waxaasna we don't have to ask why ilaahay nimanku sibuu u sameeyey dumarka sibuu u sameeyey that's the way it is there's nothing we can do about it it's some biological difference okay adiga marka hooyo tahay markaa marar badan dumarku waxay isku maleeyaan because they have to ninka weynay weydiiyaan oo sheegaan waxaa samee waxaa kame ilmaha waxaa u samee kan waxaa u samee taasna waa difference ka imaanaysa dumarku runtii inay ka hawl badan yihiin nimanka in maaragtay hooyadu maasha allah a lot of things ay keergaraynayso fiirinayso nimankana aysan keergaraynaynin and maybe that's ilahay wuxuu sameeyey I don't know but the thing is haddii aad rabtay inaad faraxsanaatid and you want to be a happy mother waa in aad barataa how to ask for help basically so matalan gurigaaga hawlaha qaar waa inaa you have to designate some of the housework for your husband you have to say matalan you know Saturday iyo Sunday ilmaha qaad ka soo celi dugsiga geyntooda ka soo qaadidooda adiga u xisaaran isnaagooda iyo waxay cunayaan adiga u xisaaran anigu wax aan shaqo aan ku leeyahay maba jirtaba so sabtida waa inuu kacaa arastayda waa inuu ilmaha u sameeyaa waraga ay cunayaan sabtida iyo axadda matalan waxaad ka dhigan kartaa waqti adiga kuu gaar ah oo aad matalan ama guriga ka shaqaysan kartid ama adigu naftaada wax u qabsan kartid ama aad dharka ku dhaqin kartid whatever it is isaga wuxuu xisaab waxa dhada sabtida iyo axadda ilmaha adaa ku shaqo leh bilista ay weydiin isnaagoodii afaarahooda buugtoodii iyo qalimaantoodii iyo dugsiga waxay ku aadeen kitaabadooda everything adiga ayaa ku shaqo leh mar raba inaan soo dhex galo sabtida iyo axadda waa samayn kartaa I'm just giving you an example matalan because waxaa rabtaa wax hawsha kula wadaaga that's one of the things that you can be happy as a mother as a woman so shaqada in aad lagula wadaago and you have to ask your help because marar badan waxaa arkay dumarka inay iyagu shaqadii wax badan qabanayaan
and they mana weydiinayaan qofkii, they don't ask for help. Qofkii waxa kama weydiinayaan waxaan qabay waxaan qabatoona. Waxay assume that they already assumed that he would know this, and maybe he would know this, but laakiin wixii ma samaynayo. So markaa maxaa dhaca markaa over time maaragtay inay hadal keento, muran keento, sheekadii keento, wixii maaragtay then hadhowto it affects maaragtay happinesskeeda, it affects her marriage, it affects maaragtay as a family ahaanba. So you have to do a prevention. Okay, this makes you unhappy. Waa inaa shaqada la wadaagtaa, waa inaa dhahdaa okay waxaan qabo saa qabo. So matalan sidii axada hadduu ilmaha kaxaynayo kasoo qaaday isnaaga samaynayo waxaad ugu dari kartaa matalan whatever it is, I don't know, whatever it is, whatever you feel comfortable. Let's say jimcaha iyo maaragtay there's no cooking. Inta farsanayna we go out, we have lunch, that's it. I don't have to feel inaa wax kariyo oo xorxeeyo babana jimcaha waa baxaynaa meesha kasoo qadaynayna. Waxaa doonta samee. The fact of the matter is hooyo haddaa tahay Soomaaliyeed maaran ah ku nool wadamadan xoogaa understanding maaragtay of course matalan the stuff that weydiin karin in Soomaaliya ku nool laakiin ninkaan ku nool ama qurbaha ku nool there are a lot of stuff that you can ask. Why socially environmentally meesha ku joogtid aad degan tahay it's really not wax big deal kama aha. So whatever aad samaynaysid aad garanay ninkaaga haddaa hooyo Soomaaliyeed tahay that are overtime unhappy because shaqaday qabanayso because waxay dareensan tahay inay hawshu dhayada qabanayso ama dhabarka u ridanayso then qofku kula nool oo nolosha kula wadaagayo waa in aad weydiisataa inuu shaqadii kula caawiyo ama wax kala qabto. Waayo nimanku badanaaba unless wixii aad weydiisid ama u sheegtid mooyaane they're really not detail oriented like we are. They're really not in tune to maaragtay guriga iyo ilmaha iyo waxaas. So waxaa rabtid ninkaagu inuu ku sameeyo you have to ask for it. hadduu yahay mid soo taagin oo aan kula qabanaynin shaqadii ama soo taagin then I don't know, it's up to you waxaad samaynaysid. Okay, qodobka saddexaad aan ku soo qaadayo buugaag baa kasoo akhriyay. Okay, waxaan maaha waxaan lagu soo samaystay, waa waxaan buugaag soo akhriyay, waa wax baaritaan lagu soo sameeyey, waa wax hadda maaragtay proven science ah maaha anu waxaan soo samaystay. Okay, qodobka saddexaad waxaa la yidhi you have to take in charge of ilmahaaga. hooyooyin badan waxay ilaaween inay yihiin hooyada ilmaha dhashay. Okay, hooyooyin badan ilmahooda waxay ula dhaqmaan si ay saaxiibo yihiin camal ama cunugeeda iyo cunug yar oo saaxiiba camal baa laskula dhaqmaa. Okay, no, aniga hooyaday alxamdulillah she wasn't really that strict but I am a strict mom. Okay, waxa weeyaan hooyad ilmahaagu waa inay ogaadaan qofka hooyadooda. Okay, haddaad mar walba isku daysid ilmahaaga inaad farxad gelisid wax walba u samaysid wax walba ku dhahaan isiiba aad siisid wax walba yes hooyo ma seexdaa midnight 12 o'clock ma seexdaa yes hooyo xaafad dariska ma soo seexan kara caawa yes waxa you're going to be unhappy if that's the kind of mother you are. hooyooyin badanna saas way sameeyaan. haddii aad rabtid inaad faraxsanaatid ama noloshaada balance noqoto waa in aad ilmahaaga tarbiyadaysataa, waa inaa ilmahaaga u sheegtaa qofka dhalay inaa adigu tahay hoostaada kasoo qaaday iyo kumaysa dhalinin. When you say no, no means no. haddaa dhexdii waxaa lama samaynayo it should mean no. Okay, that's the bottom line. hooyooyin badan ayaan garanayn ilmahooda sida no loogu dhaho. Okay, ilmahaaga adigaa dhalay ogow, mar walba taas ogow, ilmahaaga adigaa dhalay, adiga ayay ku soo fiiriyaan markay rabaan in ay maaragtay when they can't figure out stuff, when they need guidance adigay kaa rabaan. hooyadii baa tahay aday ku fiirinayaan, maskaxdaaday rabaan, aragtidaaday rabaan, waay aragnimadaaday rabaan, adiga ayaa ilmaha dhalay. Okay, so you have to act like one. waa inaad u xisaabtantaa inaad tahay hooyada ilmaha dhashay, ha u xisaabtama ilmuhu inay adiga ku dhaleen. ilmahaaga waa inaad laab siisaa maalintii si aad waqtigaaga u qaadatid ama gurigaaga u hagaajisatid ama waqti odagaaga ula qaadatid ama cunto u cuntid ama adigu neer qaadatid. Okay, ilmahaaga markaad babli joogteen markaad dhahday waxaa lama samaynayo waa inay ku maqlaan. malihi ilmahaaga dil matalan haddaad diris aday ku jirtaa laga diri jiray waxna kumaanu noqonin geed baa nala ku xidhi jiray we turn out okay. haddii westernka iyo meelaha lagaa sheega maaragtay ilmaha lama diliyo waxaa aniga waa lay dili jiray geed baa xitaa laygu xidhi jiray and I'm okay. Okay, I didn't turn out like maxaan ku dhahay dadka waxaan waxay sheegaan ilmaha haddaad dilaysa aday ku jirtaa adaa dhalay gurigaaguna waa ku xidhay saa u doontid u dil.
dilka laakiin diinta islaamka nahiyay ina ilmaha dishid ama wajiga ka dishid ama ilmaha isagoo wax sameeyay aad dishid markaas adaa dhakhtar u baahan adoo dhakhtar tag laakiin ilmaha mar dabada dharbaaxa kaga dhufatay ama hangar iyo dabada kaga dhuftay anu waxa dil uma arko wax qof ilmaha maskaxdiisa roog kartana uma arko waxa uu arkaa tarbiyadayn baan u arkaa caadi u banaan ilmaha ayaan u arkaa waxaad laakiin waa inaad noqotaa consistent marka dhahdi wax no waa inaad adigu iskhilaafin that's the most important way waa inaad adigu iskhilaafin hadda ilmaha wuxuu sheegtid hooyo waxaas maanta ma sameynayno ha ka hor imaaneen adigu don't be your number one enemy if you say we do this one waxa ilmaha ballan qaadid the promises that you make waa inaad u samaysaa waa inaad adigu naftaada iskhilaafin inta wax dhahdid ha haddana hadhow may aadan dhihinin waa in calaayo kulli xaal ilmahaaga aad tarbiyadaysaa markaa guriga joogtiin markaa banaanka joogtiin markaa la hadlaysid markaa dadka hor taagantihiin markaa kaligiin tihiin marka martiyo ku timaado markaa dad guryahooda tagaysiin calaayo kulli xaal hooyo walba yadaa garanaysa ilmaheeda soo loola dhaqmayadan hoosteeda kasoo qaaday anigu kuma sheegay sida ilmahaaga loo tarbiyadeeyo anigu ilmahayga sibaa u tarbiyadeeya and it works for me maybe adigu ilmahaaga sibaa u tarbiyadaysa and it works for you alxamdulillah everybody is different laakiin waxaa ku leeyahay haddii aad rabtid inaad noqotid hooyo faraxsan oo happy ah waa inaad ilmahaaga tarbiyadaysaa waa inaad ilmahaaga og yihiin inaad hooyadoo tahay oodan saaxiibtooda ahayn that's the bottom line your kids should know the person in authority your kids should know the person oo maaragtay dhalay hoostooda kasoo qaaday your kids should not act back and forth or do this do that no ilmahaaga inaad ku shaqaysid way ilmahaaga maanta 4 sano sigaaraan waa in ay bartaan sida loo shaqeeyo looga caawiyo guriga hawshiisa in laga caawiyo inay bartaan waa in ay bartaan sida naftooda loo caawiyo waa in ay bartaan tarbiyada basic ah okay why am I saying this first of all dadka lifekooda ma geliyo laakiin waa arkay gabar Soomaaliyeed community-gana waa ku dhex jira okay mararka qaarkood hooyooyinka aan meelaha ku arkay ilmahooda inaa hunqaaco oo kasii jeesto mooyane wax kale ima qabato maaha inaan judge garaynayo oon leeyahay perfect mother baanahay ma iyo perfect mother ama human being baanahay malihi waxaanahay hooyo sidan khalad samayni may khalad waa sameeyaa laakiin xataa siday ula hadlayaan ilmaha yaa dukaan maalin aan ku jiray gabar yar oo hooyadeed la socotay waxaan ku yiri meeshii oo dhan baa dadkii oo dhan baa basa usoo fiirinaya marna dharkii intay qaaday dhulka ku tuurtaa marna gaariga ay ku jirtay gashaa marna way ka soo baxdaa waa yaab waxa weeyaan ilma aad dhashay markuu publiga sidaa uu maaragtay uu soconayo hadhowna seebu kuula dhaqmaya teeda kale ilmuhu waa geed soo koriyo weeyaan markuu yar yahay dusan tarbiyada akhlaaqaada u yeelin oo aadan tusin inaad hooyadoo tahay oo hadalkaaga aadan sharaf u yeelin oo aadan maaragtay halkaa geynin hadhow markuu weynaado muxuu kugu samaynayaa ilmahaaga markaa Mareykan baa la joogaa Yurub baa la joogaa qurb baa la joogaa haye ilmahaaga markaad faraha maanta ka qaadid oo naftaada miserable ka dhigaan haye hadhowti markay weynaadaan 20 sano gaaraan maxaad ka sugaysaa waxba kama sugaysid marka gabdhaha Soomaaliyeed haddaad rabtid inaad noqotiin hooyo faraxsan oo nolosheeda balance ka dhigta qodobka afraad ee idin sheegay waxa weeye ilmihiina inaad ka adkaatiin ilmihiina inaad tarbiyad u yeeshiin ilmahaaga markaad saa u yeelisid naftaada waxaa ka dareemaysaa farxad weyn aad ka dareemaysaa laakiin haddii ilmahaaga maanta koobka ku cabay saxankay ku cabay meel ka qaadaysid haddaad tahay hooyooyinka yaa ilmahooda iyagoo 15 sano jira waa garanaya wallahi alcadiim waa garanaya hooyo 20 sano gabadheedu jirto yaa qadada iyo quraacda ayada u karisa markaasay waliba miiska u saartaa miiska saa u saartaa hooyadaas haddaa tahay ha alxamdulillah ilaahi subxaanahu wa tacaala ha ku barakeeyo wax kale ku dhahaya ma garanayo waayo ilmo 20 jira markaa maanta dhinacuntada afka ugu geysa ma 2 jir baa hooyooyin saasa ku jiraan Soomaalida marka kuma dheeraanayo taabigan insha Allah qodobka shanaad waxa weeyaan idin sheegay gabdho of have to be a happy mothers waxa weeyaan waa you just have to be qodobka shanaad waxa weeyaan you must be nice to people waxa weeyaan as a human being if you hadalkayga dadka kale iskaga har haddaa rabtid inaad faraxsanaatid oo hooyo faraxsan aad noqotid bini aadanka ilaahay amaan geli diinta islaamku waxay u nahisay in dadka kale looga hadlo oo la hanto oo dhiigooda la cuno waxa weeyaan human beings dadka bini aadanka ilaahay baa ku abuuray inside heartkooda inay yihiin dad wanaagsan
waayo taas waxay kuu sheegaysaa matala markaad qof caydid maanta oo kale isku day bal fiiri adiga hadda markaad qof caydid ama wax ka sheegtid how do you feel maxaad dareetaa you feel bad because ilaahay subxaana watacaala baa kugu abuuray taas inside of you even though shaydaan iyo wax kale kuu sheegayaan inside-kaaga ilaahay wuxuu ku abuuray inaad tahay qof wanaagsan markaad dadka kala xamatid markaad dadka kala maagtid markaad for no reason dadka kale iskaga caydid yaa waxaad dareemaysaa xumaan ayaad inside ka dareemaysaa teeda kale ilaahay meel kaluba kaa tusayaaba so haddii aad rabtid inaad faraxsanaatid if you really want to be a happy person you have to be happy for other people dadka kale waa inaad u faraxsanaataa dadka kale waxa ilaahay subxaana watacaala siiyey waa inaad ku faraxsanaataa qofkii kaa gaari fiican qofkii kaa lacag badan qofkii kaa aqoon badan qofkii kaa qurux badan waa inaad dhahdaa alxamdulilah waa inaad barataa waayo maxaa yeelay haddii aadan dadka kale u faraxsanayn and you always looking other people waxyaabaha ay u kordheen matalan haddii aad ka xun tahay oo aad xamanaysid oo aad dadka kale wax ka sheegaysid maxaa dhacay adiga ayay kugu soo noqonaysaa adiga ayaa happiness-kaaga hoos u dhacaya because ilaahi subxana watacaala baa kugu abuuray generally how to be nice to people okay qodobka lixaad 7 qodob ay ahayn ogoya qodobka lixaad oo sheegaya maanta how to be a happy mother waxa weeyaan haddaad rabtid inaad faraxsanaatid ama farxadaada aad kor u qaadid matalan qodobka lixaad aadii sheegayo waxa weeyaan how do I say this actionka waa inaad basataa you have to connect with your husband okay you have to connect with him because odaygaaga hadduu generally uu nin fiican yahay of course he has to be nice because ismaad ku dhasheen soo maaha so hadduu nin fiican yahay oo maaragtay sharaf leh oo maaragtay runtii ilmaha u wanaagsan guriga u wanaagsan reerka u wanaagsan whatever it is if he is your husband aa wada joogtiin okay that's the reason aa u wada joogtiin soo maaha anyway what I'm trying to say is haddaad rabtid inaad noqotid hooyo faraxsan waa inaad basataa actionka sariirta okay how do I say that in Somali I don't know how to say that in Somali and waayo maxaa yeelay waxaa lasoo ogaaday baaritaan badan lagu sameeyey dadka badan markay labada qof isqaba ay connection sameeyaan you know generally the action that they do brings happiness in both of them waxaa la ogaaday in ay runtii kordhiso oo kor qaado all the hormones that make you happy in your bloodstream مثلا oxycontin ama waxa ku dhahay oxytocin waxa weeyaan waa a hormone that generally makes you feel happy and waxaa la ogaaday dadku markay sariirta tagaan in hormonka happiness-ka ka dhigta ama farxad gelisa ay runtii aad u badan tahay dhiigooda ku badan tahay so something in your chemical brain releases the happy hormones so runtii you should have more with your husband well okay waxaan ka hadlaya okay you can feel me okay I'm trying to for some reason waxaa la ii sheegay sometimes people who shouldn't watch my shows and videos okay like my grandma or hooyaday something like that so I'm trying to be a good Somali girl you know I'm not trying to say this is Somali because that's Somali ku dhaho Allahu a'lam some people will be calling me disowning me the next minute okay so anyway generally that brings happy if you have one-on-one time with your husband it should increase your happiness because science tells us you know we're ognahay proven fact weeyaan baaritaan baa lagu soo sameeyey generally you should have more one-on-one connection with your husband because it increases your hormone happiness okay wallahi billah I'm serious I'm not lying that is true I'm not lying okay qodobka 7aad aan rabo inaan idin sheego gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta ay dhageysanaya insha Allah qodobka 6aad aan kusoo gudbinay qodobka 7aad ayaa si gudbayna I'm trying not laugh but why am I laughing it's kind of a weird right we all do it without it idima jirteen okay that's the reason meelaha u joogno that's two people got connected one-on-one that's why all of us are here that's why I'm here that's why you're here
all of us. It's an important maaragtay element in life. It's very, very, very maaragtay relaxing, and it's mashallah, you know, it brings two people together, it releases happy hormones. It's absolutely lovely, mashallah, alhamdulillah. So Allah subhanahu wa ta'ala maaragtay waa wuxuu nagu abuuray, waa wax very important. So I don't know why I'm laughing, to be honest with you. It's kind of I don't know. Anyway, you should have a more one-on-one meeting connection with your husband, because you know it will increase your happiness. Believe me, it will. So don't put it whole about it. Next time your husband wants to mingle, go mingle with him, because it would increase your happiness. Or one marat, alhamdulillah. Okay. Qodobka toddobaad, that was a week. Qodobka toddobaad aan ku soo gabagabeynayo waxa weeyaan, haddaad rabtid inaad faraxsanaatid ama aad noqotid a happy mother, waa inaad dadka cafidaa, okay? Dadka waa inaad cafidaa. dadka iska cafi, because markaad dadka cafidid, like I said, ilaahi subxaana wa tacaala qof walba wuxuu u sameeyey maaragtay a good innocent heart. Markaad dadka cafidid, I don't know why some people, ilaahay baa ku sameeyey some people, they seem to not let go of stuff, you know, wax marka qof khalad ka galo ama wax, they just seem to hold it down. حتى قف مركو لو يعفي أما لو يدستو, they still want to hold it down. مارك تذكر أساس وجهنا, and all of us would know one of those people. قف حاسس وسمي ما عفنيه يسكم الدينيه وما إلا وكره تأساس وجهنا, الله أعلم. لكن وحدي أدربتي إن دفع كل عفيان, هدي أدربتي إن نقطة قف فرحسن أما فرحدة لأكل قادد وإن دفع كل عفيدا, وإن مركا عفي اللي هو يديشته مثلا قف كله خلق من كاغل وحسن كاغل فضلا يعفي وإن عفيدا, وإن وقتا قف مسلنا عفيتان كورنتي آد عفسك آد أيو هنتي مهون وغيها دينتين إسلامك, وأختي ننكي مارتي وأصحابتها كميدا هاي نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم مارتي أها كي هبين والبدتك عفين شيء مركو السيحرو markii kale asxaabiga uu dabageli jiray oo arki jiray ninkan inuusan wax kala sameeynin, laakiin waxa ilaahay jannada uu maartay ugu bishaareeyay ay tahay kaliya inuu dadka cafiyo. So runtii cafisku waa wax aad iyo aad u muhiim ah. Dadka haddii aad cafidid waxaad arkaysaa in farxadaada ay kor u kacdo. So if someone wax kugu sameeyo uu ku dhaho cafi ama sorry uu ku dhaho, waa inaad cafidaa. Xataa qofku isagoon ku weydiisan oo sorry ku dhihin, waa inaad cafidaa, waayo it's good for you. هذا يكون في عن تقفقاس ما سميني سيد على نفسه سمينية. So forgive and forget إن شاء الله. قاس وقبل الكتب أو عاد كنا نقول كل سيد فرح مارتي فرح سنة ما هو يفرح سنة. So طابق وحنا كهل اللي مثلاً وحنا قد ما قعدنا سيد هو يد الصوماليات أي فرحة إذا قربوا قادر هاي you know. فلكن هنتي وحوالي كلا ويلوش نوي سمين كلام. It goes both ways. مارتي هذا ننقع. مثلاً هدارت إلى فرحة هذا قرب قادر. oo dadka aad cafid aad samaysid, taas ku dheeda way maaragtay kor bay u qaadataa farxadaada. So isku mid bayna alxamdulillah, rag iyo dumar, whatever works for one mostly works for man too. Marka qodobadan qudhooda nimanka u shaqeyn karaan insha Allah. Marka that was my 2 cents insha Allah. Todobada qodob maaragtay how to be a happy mother insha Allah. tii ugu soo horeysay waxay ahayd love yourself, haddii aad naftaada jeclayn maaragtay runtii sida aad ku faraxsanaataa way adkaanaysaa dada naftaada jeclayn. So naftaada waa inaad mar walba ka hormarisaa dadka kale, waa inaad jeclaataa naftaada, waa inaad waqti siisaa naftaada, waa inaad ogtahay waxay naftaada cunto, hurdada naftaada waa inay muhiim kugu tahay. waayo maxaa yeelay marka adigu naftaada faraxsan tahay ama aad naftaada dareensan tahay caafimaad, then you can love other people too insha Allah. marka todobada qodob halkaas ku dhamaaday. fadlan sii faafiya cajilkan oo dadka hore usii gudbiya si ay uga faa'iidaystaan. adduunka ilaahay waqtiga maasha Allah waa maaragtay waqtigu qaali uu yahay. marka I hope you gain something, I hope you learn something from me today inshallah. That was my main goal. The heart is designed for forgiveness. Absolutely, the heart is designed for forgiveness. ilaahay subxaana wa tacaala nagu abuuray inaad dadka kala cafino. adigu ku dhaada fiiri hadda noo qof ku dhoo cafi oo aad kuma cafinayo, you see how bad that feels inshallah. marka inshallah qodobka lixaad ogaada, yeah, have a little bit of more mingle with your husband.
it's good for him, it's good for you, it's good for your happiness, it releases the happy hormones, it's good for the marriage, it's good for everybody inshallah. Marka assalamu alaikum dhamaantiin khayr baa idin rajeynaya, qolsi wanaag.